السلام عليكم ورحمة الله خيارتا. This is GN Trades marka lagu soo dhawaada. Sidani waa sidii aan ku noqday funded trader in 4 steps. Haddaad modelkan aragtid waxaad garan kartaa easily inuu yahay the ICT 2022 modelka. Laakiin waa qaabka aan u sii isticmaalayo ay ku sii saabsan tahay. Ta ugu muhiimsan waxa weeyaan time of the day. Waqtiga aad aragtid waxaad rabtaa waqti fiican oo marketku a lot of movement iyo dhaqdhaqaaq badan uu leeyahay inaad marketka aad ku jirtid. So as 8:30, 9:30 Asia session, London, New York open, New York close, waqtiyadaas oo kale aan ahayn xilliga lunch hour ka yaxaas. Xilli waqtigu fiican yahay, time of the day iyo price ku xagu marayo. Taasi waa the first thing aan eego intaanan trade ba ka fikirin ba time of the day. talabaadna waxa weeyaan meesha may ka dhacday wax liquidity grab miyaa la qaatay liquidity miyaa la qaatay oo aan ku oran karo sababtaasan trade ka u soo galaya. The third thing is market structure shift. So taqaanay taasi oo volume ku dhaafaysa de market structure shift waa tan. Marka xaggan aan qaadanay market structure ki uu shift gareebay xaggan haddaad arkaysid market structure ku muxuu ahaa only upwards ilaa xaggan. Marka xaggan tan la dhaafay ayaan oran karnaa waa market structure shift. Bacdeenna waa inaan raadiyo fair value gap entry oo ku yaala maxay ahaday from the high to the maxay ahaday lowga and market structure shiftka. So that is the model. Hal example noon idin tusinaya. Modelkan waa ka hada key time frame aan ku jirnaa 8 baa la galayaa which is very good time frame. هذا حقاً وحن علامة سننا وباي سايد كيني حقاً هو سنة حينوية على سيل سايد كي صلى بضع طلقاته أيانو إيجنا حقاً let me just change سيل سايد so market كو هذا تداركتد باي سايد liquidity بقاطي. So the second thing that we are looking for is market structure shift. إنه market كوسبدله أو downwards هذا وصعدا. market كولي كوربو وصعدا. It no market structure shift ولي. مركان أنا عرفنا swing long نيوه T إنه سمينا سي market structure shift after buy side كان قادمني. بعدين fair value gap حاجة ما نقولتها جاي محيي ماشي باي سايد كقاعدة fair value gap ما ينوصل ما يسي. Yes, of course we have this fair value gap which we're gonna use for in sell ka كوغانو short position كنا. So stop loss كنا حاجة نلقانا يا and I'm gonna target where the sell side. So let it play out. So this is I promise you واحد هلا سعادة رادسيد 3 times at least this very clean setup at that صبر leedahay and you look for those 4 things. هذا fair value gap كي وان هيساني market structure shift كي وان هيساني buy side liquidity ولا قاطي وحن target قريننا the opposing side sell side liquidity. So وانتاس